ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo soo faarujiyay dhammaan fariisimankii ay ku lahaayeen dhammaan gobolka Shabeellada Dhexe sida degmada Mahaday, degmada Jowhar, degmada Balcad iyo goobo kale oo dhinaca badda ah. ma hadda aad gurisa fariisimanka laga soo baxay ma ka sheekay kartaa ya sidaad arkaysaan waa gaadiidka dagaalka oo ay ku hubeysiin ciidamada militariga Soomaaliya waxay soo faarujiyeen dhammaan fariisinkii ay ku lahaayeen gobolka Shabeellada Dhexe waxay ku soo wajahan yihiin meel ilaa ay hadda aan sheegi karin balse ayaga qorshoodu ah waxaan wareysanayaa mid kamid ah Xuseen mid kamid ah hay'ulal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid ah magacaaga Xuseen haye ciidanka saakaalkee ka soo baxay رئيس الوزراء dalka iyo wasiirka gaashaandhigga inta waxay xaqiijiyeen in mushaarkii la dhameystay intii goobaha shaqo ku sugneed taasi maxaad ku beeninaysaa raiisul wasaaraha aniga ma dhigaysan laakiin waa la sheegay sida uu sheegay saxabta dadkii waxa loo dhiibay ayaa dhex ka lubsaday wax soo gaaray ciidanka mar wax yar oo qaybaha hadda waad socotaan waxa ii muuqdo ciidan aad u fara badan iyo waxa gaadiid dagaal iyo waxa ii muuqdo maartay gawaarida lidka diyaaradaha ay saaran xambaara marka halkee la dhihi karaa ma noo sheegi kartaa si hordhac ah halkay ku wajahan yihiin maya ma sheegi karo meel ku wajahan yihiin madaxa xakunto oo ciidanka wado laakiin waxaan ku sheegi karaa in aad iyo aad haddii garaam iyo nidaam leeyihiin qofka noolaa karo ما صنت حسين أسقلي وحروا أنا كلهم مقعقي هاي ما واحد هاي أسقلي سيد كم وقت هاي ما جزرها دلك الصومالية يا وزير حجان كجاشانديكا علاء ترابله waxay sheegeen in mushaarkiina ciidan xuquuqdiina la siiyay taasi maxaad ku beeninaysaa hadda ciidanku aad u fara badan yahay intay ku wajahan yihiin halka ya سيدنا مقالة أدقليسان هاي العد مقالة مقالة هاي أسقري وأنا قرأ الله طبعا أوكي هاي أصغرتو هاي مقعاقة علي أحمد حسن علي أحمد حسن كترسن هاي علي فريسين كاقول كيه goobta hada shaqo halkee ahayd ciidankaaga halku fadhiyo gobolka Shabeellaha gaar ahaan degmada Jowhar hay hadda waxaan ku suganahay qayb kamid ah degmada Balcad ee aan ka soo baxnay maxaad sababta u soo baxdeen bulshada ma la wadaagi kartaa xaquuq la'aan badan la'aan hay rag badan xaasas jira way la qabaan guryaha laga qaniinay dab ma shido halka ay soo jeedaan kamida رئيسراها Soomaaliya wuxuu sheegay in xuquuqdiinii la dhameystiray intii goobaha shaqo ku sugneed adiga waxa ka muuqda hadda inaad ku sugneed fariisinkaagii shaqo sida maartay bulshadu ay ka dheehan karto xuquuqna ma aan helina leedahay warka ra'iisul wasaaraha iyo hadalkaaga ah waan baahanahay sidee isku qaban karaan oo xuquuqdiida maqan waa isku qaban karaan kulliitu rag waa heleen waana qaajoonay
dowladda Soomaaliya ma martay tirikoobkii iyo farihii hay adigoo martay wasaaraha wuxuu sheegay cidii faraha marta maartay diiwaanka si sax ah u gasho goobteeda shaqana ku sugan in mushaarkeedii ay heshay laakiin kuwa aan mushaarka helin ay yihiin kuwa shaqooyinkooda ka maqan maxaa dhileed xaqinaha inay siiyaan hay hadda ciidanku halkuu ku wajahan yahay dhigi karaa ciidanka xamar hay magaalada Muqdisho aad soo galeysaan goobihii aad ku sugneedeen hadii uu cadawga la wareego ka waran soo hadana dhibaato ma ahan in dadkii bulshadii ay dhibaato kala kulanto adina qaajo wax ma qabtaniyo hay dawladda ma xabsaa hay ya mas'uuliyadaas qaaday hadii cadawgii goobihii uu la wareego isla markaana uu dhibaateeyo dadka saraakiishan iyo wasaarada ka dhaay beerey waa ciidanka xoogga dalka maxaa isgid waxaa mas'uuliyadaas dhibaatada la wareegay ninka ciidamada xoogga intaan u jeedaa beerey way ama dukaanley waa adig magacaaga ma ilowday kartaa xasan islaw haya xasan fariisinkaagu ciidan halkee ahayd ciidankaagu halkuu degnaa airportka Jowhar ka soo baxday maxaa cabashadaaduna maxay tahay cabashadana waxay tahay wax aan u shaqeynaa balanaaba ilaa iyo 4 bilood wasaaraha Soomaaliya wuxuu sheegay xuquuqdiinii intii ku sugneed goobaha shaqo inay xuquuqdoodii heshay hay arintaas waa beeninaysaan hay maxaad ugu baaqaysan madaxda qaranka kullay waxaan u baaqaynaa annagu waxaan leenahay nasiyaan hay waxaad soo faarujiseen goobihii fariisinka idin ahayd ee shabaab aad ugu difaacayseen magaalooyinka Jowhar Mahaday Buurane Balcad iyo kuwa kale hadii meeshaasi ay soo galaan shabaab isla markaana ay ku dhibaateeyaan dadka halka degnaa arintaas mas'uuliyadeeda yaa qaadayo waxa qaadayo xal saacad iyo farmaajo ayaga oo laga xoojiya oo yiri ciidanku waa beerey hay waa qayb kamid ah ciidankii gadoodka ahaa ee ka soo baxay fariisinkii ay ku lahaayeen Mahaday Buurane Jowhar ilaa ahaan Sheekh ilaa Balcad lama oga ilaa hadda si sax looma ogaan halka ay ku wajahan yihiin laakiin wararka qaar ayaa sheegayo inay ku wajahan yihiin qaybo kamid ah magaalada Muqdisho isla markaana laga yaabo halkaasi in ay isfahan darri ay ka dhalato marka waa wali ciidankii baan la joogaa magacaaga Ismaaciil waxaad ka mid tahay ciidanka xoogga أنت قلنا إلا أي وقت كان. 4 bilood ما أظن قادر مشهر قران. بس واحد قادرنا ملا. واحد قادرته ملا. وياهي الرزارة هذا الكاميرا وهذلي وحول شيء إن على العد يكسو جناد فريزين كود الشقاء إسلام كان الديوان كي سحب عامرتي الحقوق دي إنه شيء تاسيم بين النساء. وبنتي وأنا بروباغاندو وحنا كو عدينا سميدي هلا ما كان الرزارة هو واقعين. الله يرسل كفر تقريبا هاي برلمانك فدرالك الصومالي ما حد ugu baaqaysa waxaan ugu baaqa in ay ka hadlaan arinta ciidanka mushaar la'aanta haysata iyo beenta propagandada oo risaaraha dalka asagoo ah mas'uulka dawladda uu sareeyay ku xiga asagoo ah oo been sheegay oo waliba leeyahay ciidanka mushaarkooda waa siinay hay ciidanka hadda uu socdaa waxa ay muuqda gawaari fara badan oo kuwa dagaalka ah waxa ay muuqda ciidan aad u hubaysan bulshada ma la wadaagi kartaa halka dhabta ah ee ciidankan ay ku wajahan yihiin ciidankan aad u hubaysan tiradoodu aad ay u badan tahay isla markaana balcad ka soo dhaqaaqay halka ay ku wajahan yihiin ma la wadaagi kartaa arintaas waa arin ciidan waa sir xilligaana inaan ka hadlo diyaar uma ahi balse waxaan u sheegaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah in uu arintaas soo farageliyo ka hadlo oo mushaarkeeni oo nasiyo shalay asaga ballan qaaday inuu muhiimadda ciidanka xoogga dalka uu siinayo maantana waxay taagan tahay in garaamkii uu risooro garaamkii ilaa isbeesadii ilaa mushaarkii oo jartay haddana uu miidiyan ta soo istaagay ma baxishoonayaba oo leeyahay ciidankii mushaarkeedu waa siinay hay waxaan u sheegaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka
markii koowaad aan ahayn oo markii labaad ahayn oo markii saddexaad aan ahayn markii ay idinka maqnaato tusaale ahaan sida hadda aad ii sheegtay waxaa kaa maqan 4 bilood oo xuquuq ah hadday tahay mushaar hadday tahay iidaan iyo hadday tahay specific intaba markii dawladda xuquuqda ay bixi tagto intaasoo bilood ee aad ahayd muwaadin u taagan difaaca qaranka Soomaaliyeed isla markaana gudanayo waajibaadkiisa ciidan haddii dawladdu ay wax bixi tagto xuquuqdaasi ma leedin siiyaa mise sida ay meeshin xuquuqdiina 4 bilood xuquuqa on aan helnay ma jirto garaamkii iyo raashinka aan cunaynay aan la'aanahay oo uu naga jartay reesharu marka maxaad isleedihiin marka sababta leedin leeyahay $100 aan qaadanaynay waxa aan ku safraynay inaan wadankeena u dhimano aan difaacno aysan lacag ahayn 100kii ayaan guur ka galay marka reeshaaraha Allah ka shaafiyo $100 aska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkana waxa ka codsanaa in uu sharkiinina siiyo barabagandada reeshaaro oo wadana uu joojiyo waa dawlad dumis سلام u taagnin maanta u taaganahay wiligeena u taagnaayeen ajeed waxaan ugu baaqaynaa inaan ra'iisul wasaaraha maxkamadda militariga aan saarayno wadada wada ku socdo wassalaamu calaykum ajeed waad arki kartaan cidii isla waa maartay barbagaan gawaarida dagaalka ah ee tiknikada ah ciidanka geedaha hoostiisa fadhiyo bishu waa Maarso Soomaaliya xilliga aad bay u kulashay cadceedu waad dareemi kartaan asgari baahan qaarkood ay ku sheegayeen in isna 40 saac aysan wax cunin haddana xuquuqdoodii dawladda Soomaaliya ay kula hayeen ay ka waayeen ayadoo la ogyahay in dawladda Soomaaliya madaxdii ugu sareysay oo kamid yahay ra'iisul wasaaraha dalka oo sheegay in xuquuqdoodii ciidan la baxshay kuwii ku sugnaa goobaha maraan booqday fariisin kamid ah fariismankaasi ciidanka ka soo baxay waxay ii xaqiijiyeen in 4 bilood aysan helin wax mushaar ah wax xuquuq ah raashin ah markii noolahu uu waayo raashin uu cuno waxaad dareemi kartaan in baabuur dagaal ee halkii horteeda ka muuqato waxaad arki kartaan ciidamo aad u careysan oo mararka qaar hadaladoodu aysan ahaanin waxaan hadli doonaa askarigani soo socda magacaaga sheeg walaal inaan kula hadlaan rabaa magac salaad cali xuseen salaad fariisinka ciidanka xuquuqda dalka Soomaaliyeed xageed ka soo boqoshay oo saaka ka soo dhaqaaqday maxaa soo dhaqaaqday haye sababta u soo dhaqaaqday maxay tahay sababta u soo dhaqaaqday waxay tahay lacag la'aan awgeed mushaar la'aan awgeed haye mushaarku ilaa intee la ego idinka maqan yahay ilaa iyo 4 bilood haye ayaaba naga tageen haye walaal la siiyay la waayay haye anaga tahay meel maray haye marka sida daraaddeed oo soo baxnaa dawladda Soomaaliya madaxda ugu sareysa oo kamid yahay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qarre wuxuu bulshada la wadaagay maruu midiyaha aan la hadlayay iyo ururada bulshada qaybaheeda kala duwan iyo saraakiil kamid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu xaqiijiyay in cid alaale cidii ku sugneed goobteeda shaqo in ay heshay xuquuqdeedii ciidan taasi maxaad ku beeninaysaan salaad haye hadda waxaan ku jeednaa jihada xamar xigta ah halka aan u soconno sida dhabta ah ee aan ciidankan tirada badan leh gaadiidka dagaal ku hubeysan ay tagayaan mana la wadaagi kartaa maya waayahay salaad waa maasan tahay waxaan la hadli doonaa mid kamid ah sigana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed walaal magacaaga adigoo ku bilaabay Ismaaciil Xasan Kuulow Ismaaciil waxa kamid tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xageed ka soo boqoshay saakay maxaa u soo boqoshay waxa sheegnaa in walaal sheegay ilaa goorma xuquuqda ka maqan tahay salaad Ismaaciil